kusoo dhawow channelkayga Nahiyan Cooking waxaa ka heli kartaa cuntooyin kala duwan isqurxin iyo waxyaabo kala badan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. asxaabtayda kusoo dhawaada channelkayga Nahiyan Cooking. ugu horreyn asxaabtayda waxaan idinkaga mahad celinayaa sida wanaagsan aad ii dhiirigelisaan comment quruxda badan igu soo qortaan. dhammaantiin waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin kama daalina idin mahad celiyo. waxaan sameysanaynaa nafaqo timaha. inta waxaan ku haystaa avocado hal xaba ah iyo xabad moos ah. mooska waxaa fiican mooska oo zaaid u bislaaday oo qoloftiisa xoogaa soo madowaaday laakiin gudaha madow ma ka ahan kaasoo kala fiican. laakiin aniga naagta madowga suuqa uga diray waxaan kana ii keentay mooska oo zaaid bislaanina ii keentay. marka ayada ma kala taqaano ka u diray way fahmayso midda way ku wareertay sakana ii keentay kana aan sameysanayaa labada xaba sameysanayaa nafaqada labadan shay ka sameynaynaa. avocadada inta waxaa loo yaal saliid qumbe iyo custard oil. intaana sameynaynaa labadana soo jarjarayaa waa isku soo laabanayna. asxaabteeda avocadada soo jarjartay haddana kaan jarjarayaa mooska oo zaaid u bislaaday oo madow ana bolol aan dhahnaa bolol ma aha laakiin kaasaa timaha u fiican. timaha waa bixinayaa timaha wuxuu kaaga dhigayaa maasha allah. wax yar saliidaan kusoo darayaa saliidaan ku shiidayaa saliidaan kaskasa usoo baxaysaa. marka videoga lagu dheeraanaya isku soo laabanaya. asxaabteeda oo kusoo darsaday saliida ciyaala hoos ku dheelaayo. marka video duwa ciyaalka qayle in la dhaho malaysa inay u yihiin oo malaysa qaata. bismillaah waa shiidaynaa hadda. waa moos iyo avocado saliid waxa hadda meesha ku jiro aan soo shiidayaa. bismillaah makiinadan oo blender caadi waa ku shiidan kartaa laakiin intan oo hand blender waa ku soo shiidanay smooth waaye. wax yar maxaa la dhahaa waa miirayna yani wax qashin laga miirmanaa laakiin maadaama timaha la marinayo hodhow waxaa laga yaabaa wax qashin yar oo timaha ku dhigdhigaya inay leedahay. marka way la arki doontaa insha allah. intaan kusoo gedinayaa asxaabteeda shaandhamirkan weyna kusoo gedinayaa kulli waa kusoo gedinayaa. asxaabteeda halkan waan soo miirayaa saas oo hoos uga baxaysa Soomaaliya. asxaabteeda waan soo miira galaaskaasaan ku dhexdhahay waa kaas hadda waan ka dhameeyey. hoos qaandada asaas ugu soo tirtirayaa hoos shaandhamirka hoostiisa. waxaas camal ay leedahay waxyaabahaas yaryarka ah hodhow timaha hadduu kaaga dhigdhigo dhib waaye mashan lay jirtid timuhu kaaga dhigdhigaya. marka saasaan u miiray hadeer sidiis waa ku marsan kartaa laakiin timaha haddii la marinayo waxaa fiican in la miiro.
waxaan kusoo darayaa castor oil ama saliidda castorka wax yar aan kusoo darayaa ma badinayo. asxaabteeda diyaar waaye. gabar yara rabaa inaan timaha u mariyo. waan u marinayaa. markaa marsadid cabaar ku joogtid ugu yaraan hal saac mar inaad ku joogtid waaye. kadib shaambaa iskaga dhaqaysaa. marka ka faa'iidaysta insha allah. haddii aad rabtid waxaa ku darsan kartaa ukunta qaybta yelowda ah, qaybta oo jaalaha ku darsanaysaa. qaybta kale waa iska reebay. qaybta kale shiiray leedahay marka timaha lama marsan karo. qaybta yelowda ku darsan kartaa, laakiin aniga hadda labadan shay bas u sameeyay. ilmaha waxa shishiira waxa uraayo ma jeclo Soomaaliya. qofka weyn asiga isdirqina asiga isku qasbay, laakiin ilmaha yarka ah ma jeclo. waxa hada soo shiiraan ilayna ay marin lahaa. marka ilma yara u marinaya, gabar yara u marinaya. marka ka faa'iidaysta ilmaha yar. dadka waaweyn qof kasta marsan karo. markaa marsatid masar ama bacaha oo madax lagu xirto aad ku xiranaysaa. xoogaa markaa ku joogtid waa iska dhaqaysaa. shaambaa iska dhaqaysaa because saliida ku jirto baashaan. had saliidan ku daraysaa arkayseenba, saliidan ku shiiday. marka ka faa'iidaysta walaalayaal qaaliga. assalaamu